fadhi ay maanta yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland oo ka soo xaadireen 44 mudane oo kamid ah 82 mudane ee uu ka kooban yahay golaha wakiilada ayaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo shir gudoominayay fadhigaasi waxa uu ku wargeliyay mudanayaasha fadhiga ku sugnaa in cod loo qaadi doono in xukuumadda lagu taageero heshiiska ay la bilowday maamulka Khaatumo iyo in lagu diido wada hadalkaasi waxaana la gudagalay cod qaadida soo jeedintaasi gudoomiyaha fadhiga Baashe Maxamed Faarax waxaanu gudoomiye Baashe ku dhawaaqay codaynta waxa kala fadhiya 44 xildhibaan 42 waxay taageereen wada hadalkii u socday xukuumadda iyo maamulka Khaatumo hal xildhibaan ciidamadiina xildhibaan waa ka aamusay gudoomiyuhu ma codayn waxa resolution ka noqday in la taageero wada hadallada Khaatumo iyo dawladda Soomaaliland xildhibaan Salebaan Cali Koore oo kamid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Sool ee golaha wakiilada Somaliland ayaa xaraan ku tilmaamay ansixintaasi ay ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland wada hadalka u socda Somaliland iyo Khaatumo waxaanu ku eedeeyay gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Somaliland inuu yahay biila qaran guud ahaan xildhibaano badan meesha ma fadhiyeen xildhibaano 20 ba joogay waana Baashe oo intii yarada cirra maqayahay iyo shir gudoonku ayuu ka faa'iideysanayay dhowr nin rag soo xushay busaaka hoosta uga sheegay wax golo lagu taageeraa waxa la taageerayaa nin yiri xukuumad baan ahay Somaliland joogta waa arintii yarada shirkii ay xagga isugu tageen iyagoo qoysa wax anaga noqseeya iyo wax deegaanka la saxaanood iyo dadka deegaanada gobolka Sool qoseeya midna maaha xukuumaddu haday heshiiska la geliso waqtiga uu heshiisku dhamaado ee xukuumaddu markaa cadayn doontaa in heshiis dhacay inuu sameeyo laakiin hadda golo taageerayna ma jiro cid nin waxaan ahay dawlad Khaatumo la yiraahdana nin golaha keenay waa dambiili xukuumadda Somaliland ayaa wada hadal la furtay maamulka Khaatumo 17 bishii December ee 2016 waxaanu ilaa hadda socda wada hadalkaasi Mukhtaar Ismaaciil Cali telefishinka Universal Hargeysa.